أم سلمة إلى أفر صحابية كجرته أم سلمة iyo أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان iyo صفية بنت عبد المطلب صحابية صفية بنت عبد المطلب intaas iyo waxaa ku jirtay gabadhii kale saxaabiyadii kale ahayd asmaa binti abi bakr meesha sumaya binti khayaad ay ka keentay kowsar ma aqaan marka waa laga yaabaa iyadan inay kitaabaha qaar lagu soo daray أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد waxaa noo socotay taariikh الصحaabiya aljaliila umu salama hinda almaqsuumiya waxaanu kusoo jirnay umu salama imtixaanka weynaa ee haystay ayadii wiilkeedii ninkeediiba in la kala geeyey waxay noo maraysa marka markii dambe in wiilkeedii loo soo celiyey sanad kadib se iskaga oynaysay wiilkeedii loo soo celiyey lam ashaa aan ka bilaabana marka lam ashaa ma aanan doonin bay tiri umu salama an antarayasa inaan ku daaho fii makata maka inaan ku daaho ma rabin bay tiri xataa ajida ilaa aan ka helo man usaafiru macahu cid aan la safro maka inaan ku daaho ilaa aan ka sugo inaan helo cid aan la safro ma rabinay tiri sababtayse u rabin maxaa waaye waqad kuntu waxaan ahaa bay tiri akhshaa mid ka cabsata an yaxdusa inuu ku dhaco maa wax laysa aan ku sugnayn bilxusbaani malaha waxaan la malaysanaynin inuu igu dhaco ayaan ka cabsanayay tiri oo markaa fa yucawiqani uu iga hor istaago canillixaaqi inaan gaaro bisawjiya ninkayga caayiqun mid i hor istaago markii cunugeedii la siiyey ilaan islaam waaye keligeed ma safri karto inay qof ay raacdo hesho waa qof ay raacdo intaa ka sugayan waxay istiri dadka waa isgedi karaan waa isbedeli karaan hadhowna waa lagu celi karaa marka lama ashaa ma aanan doonin bay tiri an atarayasa inaan ku daaho iyo makata maka inaan ku daaho xataa ajida ilaa aan ka helo man usaafiru macahu cid aan la safro waqad kuntu waxaan ahaa akhshaa mid ka cabsata an yaxdusa inuu igu dhaco maa wax laysa aan ku sugnayn bilxusbaani malaha oo niyadda waxaanan rajaynaynin inay igu dhacdaan ka baqaaya bay tiri oo fa yucawiqani uu iga hor istaago cala lixaaqi bisawjii ninkayga inaan haleelo caayiqu waxay hor istaago lidaalika sidaa daraaddeed baadartu waan degdegay bay tiri faacdadtu waxaan diyaarsaday baciirii neefkaygii geelka ahaa raaci rabay wadactu waxaan saartay waladii wiilkayga yar salamo waaye fii xijri dhabtaan saartay bay tiri wakharajtu waana baxay bay tiri mutawajihatan anoo u socda naxwal madiinati madiina dhinaceeda uriiddu waxaan rabaa bay tiri zawjii ninkayga inaan gaaro wamaa macii ilamana socota bay tiri axadun qof oo min khalqillaahi ilaahay khalqigiisa ka mida qof ilaahay dadku abuuray ka midane ilama socdaan bay tiri keligeeday soo baxda marka neef geela keligeed soo qabsata wamaa in balaqtu markii aan soo gaaray bay tiri attanciim tanciim markaan soo gaaray xataa laqiitu waxaan la kulmay tanciim waa meel magaalada maka xoogaa yar banaankeeda ku taalloo 3 mayl u jirta sida hoos ku qoran marka magaalada maka banaankeeday markaa ahayd markay soo baxday oo maka xoogaa yar ay kasoo fogaatay oo tanciim ay timid xataa laqiitu waxaan la kulmay bay tiri cuthmaan ibnu talxata saxaabiga marka dambe saxaabi buu noqon doona haddase waa nin gaal ah cuthmaan ibnu talxaan la kulmay bay tiri faqaala wuxuu igu yidhi ilaa ayna halkee u socotaa yaa binta zaadi raakib raakibka sahaydiisa gabadhii ninkii ahaa gabadhiisii intee u socotaa haddaa xasuustaan zaaduraakib waxaa waaye umu salma aabbaheedaa lagu naanaysi jiray zaaduraakib gabadhiisii intee u socotaa buu yidhi faqultu waxaan dhahay bay tiri uriidu waxaan rabaa zawjii ninkayga inaan gaaro oo fil madiinati madiina joogo ninkayga madiina joogaa rabaa bay tiri inaan gaaro qaala wuxuu yidhi awamaa macaki axadun oo cidna kulama socota miya qultu waxaan dhahay bay tiri laa maya wallaahi ilaahay baan ku dhaartay ila allaahu ilaahay baa ila socda bay tiri uma waxaa ila socda bunayii wiilkayga haadaa kan ah ilaahay iyo wiilkayga maahane cid kaloo ila jirto ma lahay tiri nin gob aha ayuu ahaa gaalb ha iska ahaadee qaala wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa atrukuka kaa tegi maayo laa atrukuki kaa tegi maayo abaddan weligeed kaa tegi maayo xataa tabluqi ilaa aad ka gaarto almadiinata magaalada madiina ilaa aad ka gaarto kaa tegi maayo waa kuwadaayaa buu yidhi see jidkaan adoo gabar ah keligaa kugu dhaafaa wallee ku dhaafi maayo wuxuu yidhi waa kuwadaa uma markaas kadibna akhada wuxuu qabtay bixidaami baciiri neefkayga hogaankiisii neefkii geel ahaa ee saarneed
hoggaankiisuu qabtay wandalaqa wuuna ila tegey yahwii bi asagoo ila sii hoobanaya yacni asagoo isii raacaya waa i waday waay wandalaqa waa i raacay oo waa ila tegey yahwii bi asagoo ila sii socdo oo ila sii hoobanaya aad bay u ammaanaysaa ninkan nin gaala waa yahay kow gabadhaani asagana meel cidlaha ayay keligood marayaan labo safarkana maalmaa la socdaa saddex haddana wax damaca kama gelin gabadhan waxay tiri fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa saxibtu ma aanan raacin bay tiri rajula nin oo min alcarabi carabta ka mida qatu weligay oo akrama minhu ka karaamo badan wala ashrafa ka sharaf badan nin ka sharaf badan oo ka karaamo badan weligay ma raacin bay tiri oo maxaa ku aragta umu salamo ninka kaana wuxuu ahaa bay tiri idaa balaqa hadduu soo gaaro manzilan meel la dego oo min almanaasili meelaha la dega ka mid a markaa meel degayna bay tiri yuniiqu waa ii fariisinaya baciiri neefkayga geelka ah waa ii fariisinaya tiri markaan degi rabnay tiri ileen maalmaha jidka lagu jiraahe geelka waa ii fariisinaya bay tiri suma markaas kadibna yasta'khiru gadaal buu iiga sikanayaa canii aniga waa iga dheeraanaya tiri waa la degi rabaahay tiri ileen markii geel laga soo degayo islaantan iyo horteeda iyo gadaasheeda iyo waxeeda la arkaa lugay soo degsay tii kale soo degsay marka kooda hore geelku u fariisinaa kadibna waa iga fogaanaya tiri xataa idaa nazaltu markaan ka dega bay tiri calaa dahrihi dhabarkiisa markaan ka dego neefkii oo wastawaytu aan ku sinaado calal ardi dhulka markuu igu hubsado bay tiri danaa ilayhi waa ii soo dhowaanaya tiri wuxuu u soo dhowaanaa weliba ilayhi ila albaciiri neefkiiyo u soo dhowaanaa waxadda uuna ka dejinaa canhu neefkii raxlahu rarkii saarnaayuu ka dejinaa ilaa waa la degi rabaa cawadoo kale aa la degi rabaa neefka rarkiyaa laga dejinaa waqtaadahu wuxuu u hogaaminaa bay tiri ilaa shajaratin geeduu geynaa waqayadahu geedkiibuu ku xiraayaa fiihaa dhexdeeda ratigii geedkiibuu ku xiraa alaabtiibuu aan markaa soo degtay bay tiri oo dhulka igu hubsaday ratigiibuu u imaanaa alaabtuu ka dejinaa geed meeshaas ku yaalu geynaa wuu ku xiraa hoosta ma igu soo galgalaa maya suma markaas kadibna yatanaxaa waa iga dheeraanaa bay tiri cani ana xaggay ilaa shajaratin ukhraa geed kaluu iga aadaa bay tiri fayadajicu fii dillihaa geedki kale fayadajicu uu seexana fii dillihaa hooskeeda geed kale hooskeeduu taga waa iga dheeraanaya aniga wiilkay geedaa joognaa ratiga geedaa lagu xiray asagana geed kaluu aadaa bay tiri waa gobnimo waa faidaa xaana markuu soo dhawaaday tiri haddana taas waa markii la degaayo mogtahay faidaa xaana markuu soo dhawaaday tiri haddana arrawaaxu guuritaanka markuu soo dhawaado oo markii la nasto haddana la bixi rabo qaama haddana uu baxaa bay tiri ilaa baciiri neefkaygii buu u istaagayaa fa acaddahu wuu diyaarinaa neefkii buu soo diyaarinaa rarkii uu soo saaraa geedkii uu kasoo furaa waqadamahu waana ii keenaa ilayaan xaggaygu ii keenaa neefkiiyo doors diyaarsan uu ii keenaa markaas ma ila sii joogaa maya suma yastaakhir waa iga dheeraana cani ana xaggayga waa iga sii dheeraana wayaquulu wuxuu leeyahay irkabi kor ani waa kaa sii dheeraanaya meeshaas uu tegaa gadaaluu iska fiirina fa idaa rakibtu markaan koro bay tiri oo wastawaytu aan ku sinnaado calal baciiri neefkii geela ahaa markii aan ku sinnaadona ataa wuu imaanahay tiri markaasuu imaana fa akhada markaasuu qabana bikhitaamihi waxaa weeye xarigiisii oo hoggaanka ayuu qabanayaa waqaadahu waan hogaaminayaa waa iwadaaba tiri marka ninka wuxuu gob ku yahay bay tiri intaasuu gob ku yaho markuu aan degayana waa iga dheeraana markaan soo korayana waa iga dheeraana wax damac iga galayne ma jirto meel cidla oo ilaahay moogiya ayaga cid kaloo ka warqabta aysan jirinna way joogaan waxay tiri marka wamaa zaala kama uusan suulin bay tiri yasnacu inuu igu sameynayo biya aniga mithla daalika arrintaasoo kale kulla yawmin maalin kasta saasuu igu sameynayay tiri xataa balagna almadiina ilaa madiina aan kasoo gaarnay bay tiri falamaa nadara markuu fiiriyey bay tiri oo kor ka arkay ilaa qaryatin tuulo oo biqubaa quba ku taallay tuulo quba ku taallay quba naftirkeedana madiine baadiyaheeda ahayd madiine gudaheeda maen madiine baadiyaheeda ahayd waana marka saxaabada markay soo hijroonayaan intaysan madiine soo degayeen bay ahayd waa tii nebigu uu kusoo dego masaajidka uu ka dhisa bay ahayd hadda laakiin sida culimmada ay sheegaan quba madiine ku dhex taallaabu madiinaha ballaaratay quba hadda madiine dhexdeeda ku taallaa falamaa nadara markuu fiiriyey ilaa qaryatin tuulo oo biqubaa'in quba ku taalla oo tuuladaasna yaa iska leh libani camar ibni cawf nimanka la yidhaaha iska leh jufo waa jufo qaala wuxuu yidhi markuu marka madiine kor ka arkay oo tuuladii aan usoo dhowaanay qaala wuxuu yidhi zawjuki ninkaada fii haadihi alqaryati tuuladaanu joogaa tuuladaan hadda aan dheerayn uu ninkaadu joogaahe fadkhuliiha gal
calaa barakati illaahi ilaahay barakadiisa ku gal uma markaas kadib insaraf waa soo noqday raajican isoo usoo noqonayo ilaa makata mako ninka marka gobta ah saxaabi uu noqon doonaa markii dambe asagii khaalid baa soo islaami doona oo waana wuxuu leeyahay cusmaan ibnu talxa wuxuu ka dhashay dadkii oo furaha kacbada maaragta dadkii oo furaha kacbada haayaan xilligii jaahiliyadana ayaga haayeen xilligii islaamkana nebiga asaas ayagu u dhiibay oo cusmaan binu talxa yacni markii dambe furaha asaa loo dhiibay ilaa haddana sida maaragta meelaha laga arko faraciisii iyo tafiirtiisii iyo wax isaga ku aftirsada furaha kacbada haayo cusmaan ibnu talxat waaye nin gob uu ahaa marka musalo marka madiine timid bacda tuuli tacabin wa shiddah hooyin badan dagaal badan iskala jiijiid badan cunug iyo gacantii ka jiidan tahay kala geyn badan kadib madiine cagta soo dhigatay ijtamaca waa isku imaaday ashamlu kulankii ashatiitu ee kala tagsanaa kulankii kala tagsanaa oo maxay nin iyo xaaskiis iyo ilmahoodii kala tagsanaa waa isku imaaday bacda tuuli iftiraaqin kala tag dheer kadib iftiraaq waa kala tag bacda tuuli iftiraaqin kala tag dheer kadib waqarrat wayna ku qabowsatay caynu ummu salama isheeda waxay ku qabowsatay bizawjihaa ninkeeday ku ilqabowsatay وسعيدة ونا كفرحي أبو سلمة كفرحي صاحبتي حاسكيسي وولده الميس ثم مركز كدب عدي واسكول ماتي مدينة لدقي ثم مركز كدب نطفقت وحيب باللوضي الأحداث دعدوين كتمضي إنه سعونيسو صراعا سدقدقة كلمح البصر سيد البرقسيو كله دعدوين بدنا دعدعي قارك دعدوين كدعي قارك ميدو كل شيء وعير فهذه بدر واي بدر أبل سو قاري وعدي واسكول ماتي مدينة لدقي سنة دي لوادا لسو قاري بدر أبي ماتو يشهدها أبو حاضري أبو سلمة وحاضري ويعود منها وحونا كسو نقضي مع المسلمين طول سو نقضي يعني لقوا بسو ديلا سو عافمات قوا أيو سو نقضي وقد انتصروا أيضا مسلمين تيشو بوليستين نصرا نقول أو مؤزرا حوق له هذانا بدر وادا ماتي سندي لوات وادا ماتي سندي ستح هذا لقاري وهذه تن أحد واي يخوض ودحت بنيا غمارها مول كذا يعني تحت دحق عليه بعد بدر كدب يخوض ودحت بنيا ودحت بالنيا غمارها مول كذا بعد بدر كدب ويبلي وحوديا بها أحد تحت أحسن البلاء وعذرتي ونكسنت البلاء وعذرتي ونكسنت بوديا وأكرمه تي وشرفت بنات بوديا سي حوق لي أيو دغالميا نيكي أبو سلمة لكنه ساعتين نصيب درada dhacday يخرج uu ka soo baxayaa minha dagaalka waqad jurixa asagoo la dhaawacay jurxan dhaawac baliiqan aad iyo aad u xeel dheer oo dhaawac fog kasoo la dhaawacay buu ka imaanaya famaa zaala kama uu jujuula abu salama yucaalijuhu dhaawacii inuu daaweynayo xataa badaa lahu ilaa uu u muuqday annahu qad indamala inuu raystay dhaawacii waa la daaweeyey koraa wuxuu u muuqday inuu ka raystay laakiin hase ahaatee aljurxa dhaawaci kaana wuxuu ahaa qad rumma mid bararay calaa fasaadin liajli fasaadin dhaawac daraaddeed oo dhaawacyo waxaa jiro kor ka muujinaya inuu raystay maqaarku waa isi soo qabsanaa laakiin hoosuu ka baqbaqaa dhaawacii abuu salama saasuu noqday xataa badaa lahu ilaa uu ugu muuqday annahu qad indamala inuu raystay laakiin hase ahaatee aljurxa dhaawacii qad rumma waa bararay calaa fasaadin liajli fasaadin oo dhaawac daraaddeed ayuu la bararay oo meeshii waa hallowday waay macnaha nabarkii waa hallaaday famaa labitha ma uusan nagaanin dhaawacii ma uusan nagaanin an intakaa ilaa uu furmay dhaawacii waaba baqay baq wa alzama wuxuuna fariisiiyey abaa salamata abuu salama ayuu firaashkii abuu salama sariiruu saaray dhaawacii yaa ku xumaaday dhaawacii yaa furmay waa baqay kadibna sariiruu koray وفيما كان أبو سلمة أيضا أبو سلمة يعالج مارك داوينايو من جرحه داوعيس وكد ذاليو قال هذا نحو كير لزوجه حاسكي سوحو كير يا أم سلمة سمعت وحان مقلب وحو ترى مركي يونس الحوار داوعا كده دقاقين سلانتي شو مركو دردار مياه وفيما كان أبو سلمة أيضا أبو سلمة يعالج داوين أيو لدى ددالة من جرح داوعيس قال لزوجي حاسكي سوحو كير يا أم سلمة سمعت وحان مقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم oo yaquulu dhahayo laa tusiibu ma asiibto
أحد قفنا مصيبة ما أصيبته أو فيسترجع مركا أو يسوء نقضه عند ذلك أرنت أكتر أو استرجاع فيسترجع مركا حاوي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. marka ma samictu marka Abu Salama Umu Salama xadiis u sheegaya حين سمعت waxaa maqlay rasuulullah sallallahu alayhi wasallam oo yaquul dhahay laa tusiibu ma asiibto kuma dhacdo axadan qofna musiibo kuma dhacdo oo fa istirjaca uu istirjacsado inaa lilaahi uu dhaho cinda daalika musiibada agteeda oo wayaquula uu dhaho allaahumma ilaahayow cindaka adiga agtaadaan ixtisaabtu ka xisaabsanaya musiibatii musiibadeeda haadihii tan ah agtaada ilaahu ka ajar malaysanaya allaahumma allahayow ukhlufnii ii bedel isii khayran wax ka khayr badan minhaa masiibadan igu dhacday wax ka khayr badan ilaahu iigu bedel qofka hadduu saa dhaho ilaa acdaahullaahu ilaahay wuxuu siinaa caza wajalla ilaahay qaalib ahaaye ilaahay wuxuu siinaa bedel khayr qaba ilaahay siinaa marka umu salamoy lacalla ilaahay ma qadare laakiin hadday dhacdo ducadan ku duceyso ayuu u sarbeeboyaa macnaha ظل أبو سلمة wuxuu ku susugnaa calaa firaashi maradihi firaashku ku jirana ayuu iska joogay ayaaman maalmo wafii daati sabaaxin subaxyaalka ka mida jaa'ahu rasuulullah rasuulka allah u yimid sala allahu calayhi wasalam liyacuudahu si u soo booqdo ilaan abu salama iyo rasuulka walaalay ahaayeen naaskiis la nuugay si kale haddii loo fiiriyana eedadiisaa dhasha abu salama nebiga eedadiisaa dhasha جاء رسول الله رسولك الله يمي صلى الله عليه وسلم ليعود وسوء صوبوقه فلم يكد مبوسسين بالنبي ينتهي إنه سير دمينيو من زيارتي بوقشيس ويجاوز وسير دافيو باب داري قرقس الباب كيسة حتى فارق إلى وفارق أبو سلمة على حياة النوش نبي مركوب زيارتي دميستي والباب وسي مرة أبو سلمة وعدين فلم يكد نبيgu ma uusan ku sii siganin yantahi inuu dhammaynayo min ziyaaradiisa wayujaawisu uu gudbayo baaba daarihi albaabkiisa gurigiisa albaabkiisa xataa faaraqa abuu salamata alxayaata faqmada nabiyu nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ku daboolay biyadayhi labadiisa gacmood ashariifatayni ee labada maaragtay sharafta lahaa ayuu nebigu ugu daboolay caynay saaxibihi saaxiibkii labadiisa indhood ilaa qofku markuu dhimanayo indhihiisu waxay raacayaan ruuxdii bay sii dayayaan sida fiican marka waxaa waye qofkiina indhaha loo soo laabo waayo wa rafaca wuuna kor yeelay nebigu tarfahu araggiisii wuu ila samaa'i samada u kor yeelay waqaala nebigu wuxuu yidhi nebigu kor u fiiriy waa u duceynaa moogta allaahuma kfir liabii salama qofka markuu dhintaana loogu duceeya allaahuma allahyow ikfiru dembi dhaaf liabii salamata abi salama warfac kor yeel darajatahu darajadiisana filmuqarabiina kuwa agtaada laga dhoweeyey dhexdooda ku kor yeel واخلفه إله بدل خير قبسي في عقبه أهل كيسو في الغابرين انت بحرتي أهل كتجي في الغابرين في الباقين أهل انت حرتي إله خليف يبدل في عسي واغفر لنا نودن بداف ولو أسيا نودن بداف يا رب العالمين وافسح واسع له أسيا في قبره قبر جيس ونور نوري له أسيا فيه قبر جيس إله نور ساس النبي ودعيه marka umu salama geeriyaa gashay ninkeediyaa ka dhintay amaa umu salamata ma tahay fatadakarad waxay soo xasuusatay maa rawaahu laha wuxuu u wariyey abuu salama qofka marka ducada qofka meydka loogu duceynayo qofka laga dhintay asaga muxuu ku duceysanaya ilaa musiibaa ku dhacday naftarkiisii abuu salama hore ugu soo sheegay umu salama tiya soo xasuusataa marka faqaalad waxay tiri allaahuma allahyow cindaka adiga agtaadaan axtasibu ka ajir malaysanaya oo ka ajar xisaabsanaya musiibatii musiibadeedan igu dhacday haadihii oo tan ah sidii dhahda ma ogtahay allahuma khlufnii khayran minhu ma dhihin laakiin sababta hadda uu kuu sheegay laakinahaa se ahaatee lam tatib uma aysan shuubanin nafsuhaa nafteedii an taquula inay dhahdo nafteeda yacni kuma aysan farxin oo nafteeda waa sii weysay lam tatib nafsuhaa waxaa waaye nafteeda waa sii weysay an taquula inay tiraa allaahuma allahayow akhlifnii bedel isii fiihaa masiibadan khayran wax ka khayr badan minhaa iyada wax ka khayr badan ilaahu iigu bedel inay dhahdo nafteeda waa sii weysay sababta waxaa waaye liannahaa maxaa yeelay kaanad waxay ahayd tatasaa'alu mid isweydiisa waman casaahu yuu noqon doonaa an yakuuna inuu ahaado khayran min abi salama oo abu salama yaa ka fiicnaan doono bal hadda ilaahay uu kuugu bedelay markii riwaayadan oo kale arko waxaa isweydiiyaa maadaa facala abu salama
ilaa uu Umu Salama ayba ka arki weysaba cid kaloo ka fiican ay malayso weyse xataa oy dhahdo yaa man casaahu yuu noqoni yaa laga yaabaa an yakuuna inuu ahaado khayran min Abi Salama oo yaa hadda Abu Salama ka fiicanay isdhahan saasay niyadda gashay يعني marka subxaanallah ninka Abu Salama Umu Salama qalbigeeda intuu qabsaday oo si fiican u jeclaatay waxaaba waxaa ka qarsoonaadayba waxa Abu Salama ka fiican inuu jiro waxay istiri ilaah wax ka khayr badan igu bedel hadaa tira bal hadda cidda Abu Salama ka khayr badan oo lagugu bedelaya taasay ku fikir Umu Salama marka waxaa weeye Abu Salama inuu meesha waxaa kaga soo baxayso inuu ahaa khayra zawj nin maaragtay xaaskiisa aad u fiican oo ay jeceshahay oo ka sabri weyso oo xataa ducadan ay istiri cid Abu Salama ka fiican maba jirtaba laakiin hase ahaatee maalmisad maba aysan sii nagaanin an atamad inay dhammaystirto adducaa laakiin waxay tiri ducada dhammaystir kole Abu Salama wax ka khayr badan uma jeedide ducada dhammaystiree tiri ducadii way dhammaystiratay حزن المسلمين مسلمين ويلا مرغودين لمصاب أم سلمة أم سلمة وحكو دعي كما لم يحزنوا سيسا ugu murugoonin لمصاب أحد من قبل qof hadda ka hor wax ku dhacay qof kale oo muslimiinta ka mid ah si aan loola murugoona iyada loola murugooday وأطلقوا عليها waxayna u bixiyeen isma magaca أيام العربي carabta garoobteedii ayamku waa qofka maaragta laga dhinto ee ninkeeda weysay marka naagtan waxaaba la yiriba carab dhan maadaama ninkeeda uu ka dhintay carab dhanayba garoob oo ka maaragtay ka garoobowday oo waxaa weeye masiibadeedii waxaaba laga dhigay oo masiibo qawmi ah oo carab dhan qabsataa laga dhigay wax iyada gooni ku maaragtay ku eg lagama dhigin sida muslimiintu ula murugoodeen daraaddeed sababtay ula murugoodeen laba mid waayo horta magaalada madiina qof qaraabaha oo u jooga ma leh waa midda labaade ilmo tiro badan oo yar yar ahna waa u dhashay Abu Salama oo ilmo badanay u haysay waa maqnaa إذ لم يكن كما سجنين لها أم سلمة في المدينة مقالة مدينة أمجوج أحد قف من ذويها قرابة ذا كمدة وح قرابة ذا كمدة مدينة أمجوج يا أجو كلية غير سوية الميرير وصغار آدي هذو يرير وكزوق بالقطع شمبر كفين كلا ده الميس وكلا زوق بيجارت وحالها الماء شمبروه دلان مركب وكنت لقى فيقو بالنا وسيالني وسنبوبي كريم hadda uu dhashay waxa yarka uu yahay azuqbi la dhaha alqataane waa nooc ka mida maaragtay shimbiraha nooc ka mida waayo marka shimbirkaasi ilmaha xayn ah uu dhala hal mar wax tiro badan uu hal mar dhala markay zuqbiga marka maxaa waaye riish ama maaragta baal ay ku duulaan ma laha ilmaha marka waxay haysta meeshan waxaa laga wadaa ila waxaa jirta cari waxa yidhahda tashbiih waxaa jira waxa yidhahda mushaboobiya adaab tashbiihi wajuu shabah maxaa la iskugu ekeysay ilmaha Umu Salama iyo ilmaha shimbiraha aan weli baalasha yeelanin yacni ilma aan ishayn karin oo iskorin karin oo tabar iyo awood aan lahayn oo tiro badan ay haysataa laga wada sida shimbirkaasba ilmo badan marka ukunta u fiiqo uu ku tabarku ka fiiqo ilmaha markaysa shimbiro yeelanin isaa u tabardaran yihiin ilmaha intaysan yacni baalal yeelanin saa u tabardaran yihiin ee ilmaheedan u tabardarnaayeenaa laga wadaa macnaha غير سبية ilmo صغار yaryar oo ka zuq bilqita ilmaha yaryarka fiinka shimbirka fiinka la yiraahdo ilmihiisa yaryarka oo kale ah waaya shacra way dareemeen marka almuhaajiruuna muhaajiriintii way dareemeen iyo wal ansaari ansaartii way dareemeen macan si wada jira waxay u dareemeen bixaqi umu salama xaqay ku leedahay calayhim korkooda war gabadha waxaa la yidhi magaalo cid uma joogto ilmo saqiiraha tiro badan waa haysta xaqay nagu leedahay famaa kaadad mama aysan siganinba tantahi inay dhammaysanayso min xidaadiha asaydeedii calaa abi salama asayda abu salama u saarneed waa u dhammaatay markay u dhammaatay xataa taqadama waxaa usoo hormaray minhaa umu salama abubakar asidiiq yakhtubuhaa isoo u doonaya linafsihi naftiisa abubakaraa guurka soo damcay subxaanallah saxaabada waxay guurkooda maaragtay gabadhan sidee loo daryeeli lahaa ilmaheeda sidee loo daryeelaa buu ahaa faabad way diiday an tastajiiba litalabihi warkiisa inay yeesho aan hadda guur uma soo jeedin ثم تقدم منها عمر هذا نوصه هرمري بن الخطاب فردته ويعلسي كما ردت صاحبه سي صاحبك وعلسي مركا أبو بكر يا عمر أبو علس ثم تقدم منها رسول الله رسولك الله صو هرمري أو صو دونتي أو كور وصو بندقتي قالت وحي كتير مرك له رسولك كتير عليه الصلاة والسلام يا رسول الله رسولك مرك هوريك ميس علني وحيتر يا رسول الله رسولك إلهي إن فيه وحي وسوا خلالا tilmaamo oo ثلاثة saddex ah saddex tilmaamo ay haysato inaa ku guursado igu hor istaagayso furta waxay tiri sababta koowaad
وأنا أنيق waxay tiri imra'atun haweeney ayaan ahay shadiidatul ghayrati maseerkeedu aad u daran yahay adina waa dumar badan tahay nabi maxamed anna maseerkeygu aad u daran yahay wa akhaafu marka waxaan ka baqayaa an taraa inaad iga aragto minii ana xaggayga shay-an shay oo yuqdibaka ku carageli ila nabi maxamed aa tahay nimanka lama mid tihiye haddaa inta maseero oo wax ku carageli aa iga aragto wayucadibuna allahu bihi ilaaha ii cadaabayay tiri waana maseer badan oo ismaceli keliya tiri waa ku abuuranahay taas marka waxay tiri waxay tiri yacni waa tilmaanteeda koowaad ama sababta koowaad waayay tiri marka alghayra aw ilmaseer waxaa weye fitrat almar'a wey gabadha dumarkaa abuurkeedo inay maseerto oo wax samayso laakiin umu salama qofka waxaa la rabaa inay diintiisa celin karto umu salama waxay leedahay rasuulullah haddaa maseero waxaa laga yaabay inaan waxaad ka carooto inta sameeyo ilaahay uu ii cadaabo marka haddaba waxay tiri inaan guurka aan maaragta waxyaabaha guurka iga celinahay ay ka mid tahay waa midda koowaad taas waay wa ana anigana imra'atun haweeney ayaan ahay bay tiri qad dakhalad gashay fi sinni da' waa duqoobay bay tiri da'aa gashay oo maxay ka wadaa da'dii guurka waa dhaafay tiri nabi maxamed hadda kadib waxaa layga dheefaa tan saddexaad waxay tiri wa ana anigana imra'atun haweeney ayaan ahay daatu ciyaalin ilma haysata ilmo badanna waa haystahay ninna naag ilmo badan maba jeclaba qaala calayhi salaatu wasalaam nebiga laakiin naag keliya ma rabini reerkaanuba rabaabo walaalkiis uu ka dhintay inaysan dayacmin faqaala calayhi salaatu wasalaam amaa maa dakarta waxaad sheegtay oo min khayratika maseerkaada ah fa innii adcu llaha ilaahay baan kuu barya casa wajalla an yudhibaha inuu kaa tagsiyo cankaada xaggaada horta maseerka waxa aad awoodi kartid maa wax ilaahay oo gacan ku hayo waaye ilaahan kuu barya ilaaha kaa tagsiinaayo wa amaa maa dakarta waxaad sheegtay oo min asinni da'da ahna faqad asaabanii aniba waxa ay haysto oo igu dhacay mithlu ladii asaabaka wixii adig kugu dhacay oo anigu kaama yari wa amaa maa dakarta waxaad sheegto min alciyaali ilmaha ahna fa inamaa ciyaaluku ilmahaadu ciyaali ilmahayga waaye saddexdiiba nebiga waa daaweeyey uma markaas kadibna tazawaja rasuulullah rasuulka alle wuxuu guursaday sala allahu calay wasalam min ummi salamata ummu salama u guursaday culimmadu waxay dhahaan sanadii afaraad ee hijrada bishii shawaal ayuu nebigu ummu salama guursaday fastajaaba allahu ilaahay baa u ajiibay ducaa'aha ducadeedii wa akhlafaha ilaahay baaba ugu bedelay khayran nin ka khayr badan min abi salama abi salama nebigaa ka khayr badan nebiga oo maaragta khayru khalqillaahi ilaahay ugu bedelay ومنذ ذلك اليوم maalintaa laga soo bilaabo lam tabqa hinda almaqzuumiya hinda ma aysan ahayn umman hooyo uma ahayn lisalamata waxdahu salamo keligii hooyo uma ahayn wainamaa laakiin hadad waxay noqotay umman hooyo u noqotay lijamiici almu'miniin waa magaceedan waxaa la yidhahdaa ummulmu'miniina ummu salama la yidhaha marka salamo keligeed ma aysan hooyo u noqonine mu'miniintoo dhan ay hooyo u noqotay nadara allahu ilaahay ha nuuriyo wajha ummi salamata biljannati jannada dhexdeeda ilaahay ha ku nuuriyo waradiya canha ilaahay ha ka raali noqdo wa ardaaha ilaahay ha raali geliyo ummu salama waxay ahayd islaan aad iyo aad u caqli badan waxay dhimatay sanadii 59aad ee hijriyada ayadoo jirtay 84 sano waxaana culammada qaar ay ku tilmaamaan inay tahay gabadhii u dambaysay ummahaatulmu'miniin ee dhimato aakhiru man maata min ummahaati almuslimiin ummahaatilmu'miniin tii u dambaysoo dhimata ayay ahayd qabuuraha baqiic ee madiine ku yaalana waa lagu aasay intaa waxaa ku dhammaatay qisadii asaxaabiya aljaliil ah ummunaa umu lmu'miniin asaxaabiya ummu salama hinda almakhzuumiya radia allahu canha wa ardaaha والله أعلم وبالله التوفيق